ku socotaa dhalinyarada ama dadka iska sameynaya waxyaabaha aysan aqoonta u lahayn isla markaana ay kaga imaan karaan khataraha. Sida hadda dad badan waxaa arkaysaa oo especially diinta kaleeto qof soo sameynayo kaleeto laba sawir oo sameynaya tusaale ahaan sawir laga cabsanayo iyo sawir wuxuu soo dhigayaa mid ka mid ah culimada Soomaaliyeed oo wuxuu ku soo kala qorayaa tusaale ahaan midna wuxuu ku qorayaa ha ku salli nabi midna wuxuu ku qorayaa ku salli nabi asagoo macnaha sawiradaas u kala adeegsanaya ujeedadiisana ay tahay in ama comment ama like ama views wax la yiraahdo inay dadka muuqaalkiisa fiirsadaan ama sawirka uu soo dhigo dadka ay comment ka bixiyaan oo kale asagoo ula dan leh ama page-ka uu sameesto uu rabo inuu ku kala kacsado oo dad badan ay ku soo xirmaan. Arrintaas iyada ay qatarteeda leedahay waxaana muhiim ah qofka haddii uu rabo inuu xumaan u reebo ama uu dadka wax wanaag u gudbiyo ama wax xumaan inuu kaga digo uu rabo waxa la rabaa inuu dhinacii uu ka hadlayo uu soo bandhigo. Adduunkana hadda qarnigan iyo qarniyada soo socdaba wuxuu u guurayaa online-ka oo malaayiin Soomaaliyeed waxay diyaar ku yihiin online-ka oo marka online-ka lagu wada jirana tartan xoogan baa jira ciyaal fara badanna meeshaas diyaar ku yihiin oo dadka diyaar u ah inay niyadooda qabsadaan xumaanta u leexiyaan kuwo badan oo qeyr ku sheegayaan meesha ku jiraan. Marka waxaa muhiim ah in aaladana loo sameeyay oo loogu talagalay in lagu jiha wareeriyo aadan iska raacin. Laakiin haddaad tiraahdo waxaa doonaa farta doonaa qoraa arrintaas waxay leedahay dhibaatadeeda leedahay waxaana ka imaan karta in xuduudii loogu talagalay oo ahayd inaad ku ekaatid aad dhaaftid qatarteeda ka imaan karto. Marka wax kasto oo aad sameynayso adigoo isdhahayo sometimes waxaad ka raadisaa inaad wax ka hesho dhibaatada ka helin ka joog.